ciid wanaagsan saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan halkan waa channelka dabagalka wararka waa sagaalka bisha toddobaad sanadka 2022 qodobada ugu waaweyn warkeennana waxaa ka mid ah ciid mubaarak ciid wanaagsan ciid al-adha al-mubaarak sanadka hijriga 1443 madaxda qaranka oo shacabka Soomaaliyeed ugu hambalyeysay munaasabada ciida Carafo xasan sheekh maxamuud miyuu kala diri doonaa ciidanka haramcad maadaama xilligii mucaaradku ahaa isaga iyo musharaxiinta kale ee mucaaradku ay si weyn ciidanka haramcad ugu eedeyn jireen inay ku milmeen siyaasadda ayaa Axmed Madoobe oo shaaciyay qorshe ay ku heshiiyeen dowladda federaalka oo ay ku dhaqaaqayaan intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon warka channelka dabagalka wararka hadii ku cusubtahay channelkan ku soo biro subscribe sar muuqaalka like sar share gareey oo la wadaag saaxiibada ood ku maasantahay inaad ka mid tahay saaxiibada dhawey channelkan haatan warkii oo fidsan madaxda qaranka ayaa shacabka Soomaaliyeed u diray fariin ku aadan munaasabada ciida madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha dalka Xamza Cabdi Barre ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu hambaliyay munaasabada ciida Carafo ayagoo si gaar ah ugu mahadceliyay ciidamada qaranka madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa muujiyay sida uu kaga murugaysan yahay xaaladda nololeed oo ay la tacaalayaan kumanaanka qoys kuwaas oo ay saameeyeen abaaraha ka jira dalkeena waxaan ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed in farxadda ciida ay la qaybsadaan dadkooda dhibaataysan isagoo dadka Soomaaliyeed u rajeeyay in sanadkan kan xiga ay ku gaaraan horumar barwaaqo amni iyo xasilooni waxaan uu kula dardaarmay inay gacmaha isqabsadaan qalbiyadana ay isku furaan walaalayaal dadkeena in badan oo kamid ah ayaa duruufo adag ku sugan duruufo ay keeneen abaaruhu iyo roob yarida iyo amni darrada isku darsoomay ayaa dadkeena waxay geliyeen duruufo aad iyo aad u adag عن dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan aan ka codsanayaa in la istaageero kooda waxay sameeyeen waxay istahay inuu la wadaago dariskaaga fiiri meel kasta aad joogtaba dhankiisa ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre ayaa ciidamada qaranka ka codsaday in maalmaha ciida ay si laba jibaaraan dadaalkooda si ay nabadgelyo ugu ciidaan dadweynaha Soomaaliyeed sidoo kale waxa uu mahadceliyay shacabka Soomaaliyeed ee walaalahooda tabaalaysan ugu gargaaray munaasabadan ciida awgeed isagoo ka codsaday in la gargaaro dadka tabaalaysan sidoo kale waxaan hambalyo u dirayaa dadka Soomaaliyeed ee sharafta leh waxay haystaan u soo huray una diray walaalahooda abaaraysan ee abaartu saameysay si ay u badbaadiyaan ulana qaybsadaan xanuunka ay abaaruhu keeneen waxaan ka codsanayaa guud ahaan shacabka Soomaaliyeed in ay sii laban laabaan dadaalka ay wadaan dhanka kale xasan sheekh maxamuud muxuu ka damacsan yahay ciidamada haramcad shantii sano ee la soo dhaafay magaca ciidamada booliska gaarka ah ee haramcad ee Soomaaliya waxa uu aad ugu jiray wararka Soomaaliya marar badanna waxa uu ka muuqday ciwaanada warbaahinta Soomaalida waxay ka fuliyeen gudaha wadanka tobanaan howlgallo oo ka dhan kooxda shabaab balse ciidanka ku saabsan ku lug lahaanshaha arrimaha siyaasadda ayaa dhaliyay hadalhaynta ugu badan eedeymo badan oo loo jeediyay madaxda ciidamadaasi ayaa marar badan siyaasiyiinta mucaaradka Soomaaliyeed waxay u gudbiyeen dowladda Turkiga oo Soomaaliya ka caawisay tababarkooda meelaha la geeyay ee muranka badan uu ka dhashay waxaa ka mid ah gobolka Hiiraan oo ay ka jirtay xiisad siyaasadeed taasoo si weyn loo cambaaray balse dowladda Farmaajo oo xilligaasi ay sheegtay in ciidamadaasi loo adeegsaday sugidda amniga iyo la dagaalanka shabaab oo kaliya siyaasiyiinta waqtigaasi sida weyn u dhaliili jiray Farmaajo waxaa ka mid ahaa madaxweynaha hadda xilka haya ee Soomaaliya xasan sheekh maxamuud agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya ayaa wax laga weydiiyay xasan sheekh maxamuud sida uu ka yeelayo ciidanka haramcad ee uu ka ashtakoon jiray waxaan uu sheegay in ciidamadaasi ay u shaqeyn doonaan sida rasmiga ah ee booliska Soomaaliya uu howlgalo awaamiirta iyo qorshayaasha iyo howlgelinta taliyaasha booliska Soomaaliyeed ay ku shaqeynayaan booliska kale ee Soomaaliyeed ay la mid yihiin ayuu agaasimaha
dhanka kale dowladda Turkiga ayaa Soomaaliya u tababartay ciidamada commandoska gorgor ee Soomaaliya waxaana Xasan Sheekh Maxamuud safar uu ku tagay wadanka Turkiga oo booqday xerada isbarto ee lagu tababaro ciidamada Soomaalida sidoo kale ciidankan gorgor waxay kamid ahaayeen kuwa ay ka cabanayeen siyaasiyiinta Soomaalida waqtigii dowladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana agaasimaha sidoo kale mar wax laga weydiiyay shaqada ciidamadan uu sheegay inay tagi doonaan furimaha ciidanka haramcad oo ka tirsan booliska dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa la aasaasay markii xukunka uu qabtay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waana ciidamo si gaar ah loogu tababaray ka hortagga rabshadaha iyo dagaalada ka dhaca magaalooyinka ciidankan oo tiro ahaan lagu qiyaasay 1,000 askari ayaa waxaa tababaray dowladda Turkiga oo gudaha dalkeeda u qaada halka qaarna ay tababar ku qaataan xerada Turkisom ee Muqdisho ومركنا أحمد مدوبي وحوشاعي قرشة أي كهشيان دولة فدرالك أو يكون دقاقيا مدحونا جبلان أحمد محمد إسلام مدوبي أو قطبة أجيدي إذا ما دقلب كسيدة وكسوغن قبل كجبده هوسي أي كدل بضي إني وديار جروبان دقال كدن كوحة الشباب أحمد مدوبي يا شيخي إن مدو لوجوسو جري دفاع يدفيس بالسادة عن لسوق دونين ويردن به أو الشباب أي سوقادا وعوشاعي إن دولة عصب مدحونا حسن شيخ محمود أي لقلن هشيس إن الشباب لكو دقاقو إساقو عيدن كبالن قاضي إن صفكوري دقالك وقليدونو مدحونا أحمد مدوبي وعوسيدو كلا شاقي إن مدحونا حسن شيخ محمود سراكيش عيد مدى الرئيس الوزاري حمزة أي عيدن كوسو بوقن دونان فريمها دقالك وهو عيدن كو أماني إني غرغاران dadka ka soo hayaamaya deegaanada ay ka soo barakiciyeen shabaab waxaan uu sheegay inuu aad ugu farxay markii uu arkay qoys soo hayaamay oo uu sheegay in ciidamadu ay caawiyeen oo ay siiyeen cunno ay haysteen oo marar badan ay dhacdo oo inta badan aniga saguun ciidanka joogay raashinka ay karsadaan iyo kuwa meelaha checkpointyada kala joogay inay raashinkii oo bisil caruur iyo reer ku soo barakacay oo socda intay siiyaan maalin walba bil walba bisha 15 raashinka go ciidanka dib raashinka u karsado taasna cid walba laga heli karo ama had gaara oo in fact dadka idin soo dhaafa ee hadda yimid meelahaas luglow ee barakacayaasha waxa ugu badan ee ka abaal sheegtaan waxay noqotay ciidanka ay soo marayaan dhowr sano yaan nufus ku jira waxaad ogtihiin militariga qaacidadiisa waxaa weeye difaaca ugu fiican waa weerarka waxaan rabaa inaan idiin sheego dhowr sano oo nufus ku jiray oo fadhiday taaramkaasi wuu soo dhammaaday insha allah khasaaraheena wuu yaraan doonaa dhimashadeeda way yaraan doontaa dadkeennaan u gudbi doonaa horey baa loo soconaya guudana saaxiibayaal waan dhegeysta warka channelka dabagalka wararka adeed ku cusubtahay channelkan kusoo biro subscribe sar muuqaalka like sar share gareeyo la wadaag saaxiibada ad ku maasan tahay inaad daawato warkan mid ka xiga intaan ku kulmi doono nabadgelyo